waddaniyaddu waa dareen qofnimo iyo damiir ummadeed taas oo qofka ku dhalisa jacayl uu u qaado dalkiisa iyo dadkiisa kana dhigta qofkaasi mid naf iyo maalba u hura waddankiisa si kale haddaan u idhaahdo qofka waddaniga ah waxaa lagu gartaa 3 sifo oo kale ah 1 waddanigu waa qof naftiis hura ah 2 waa qof maalkiis hura ah iyo 3 waa qof waqtigiis hura ah intaas wixii ka soo hara qofku waa inuu yahay muwaadin oo kaliya aan dib u jaleecno taariikhda siyaasiyiinta iyo madaxda hadda joogta keebaa leh sifaha wadaninimo iyadoo lagu salaynayo cilmi baaris ku qotanta taariikh nololeedkooda iyo waxqabadkooda 10kii sano ee ugu dambeysay dalka waxaa soo maray dhowr hogaamiye kuwaas oo midba taariikh iyo wax lagu xasuusta lahaa aan ka bilowno Sheekh Shariif Sheekh Axmed inta uu soo noqon madaxweynaha Soomaaliya waxa uu ahaa macallin wax soo baray arday fara badan iyadoo kadib lagu ammaano halgankiisii iyo hogaamintiisii wacnayd ee keentay in dalka laga saaro ciidankii Itoobiya madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud waxaa lagu sifeeyaa mid ka mid ah aabayaashii waxbarashada Soomaaliya isagoo tan iyo burburkii dalka ku dhex jiray maamulidda iyo aasaasidda goobo waxbarasho wuxuuna ahaa maskaxdii iyo aasaasihii jaamacadda caanka ah ee Simad oo ay ka soo aflaxeen arday fara badan oo dalka iyo dadka anfacay iyadoo weli ay jaamacaddii Simad ay waxbarto arday Soomaaliyeed oo badan haddaba Maxamed Cabdullaahi Maxamed Farmaajo oo xilligan ah madaxweynaha Soomaaliya ha inooga sheekeeyo shaqadii uu dalka iyo dadka Soomaaliyeed u soo qabtay 22kii sano ee u dambeysay waxyaabaha muhiimka waxay tahay oo anigaan uga duwanahay siyaasiyiinta kale inkastoo dhalinyaro badan ay arkaan nin dhalinyaro ah anigu ma yiri waxaan shaqaynayay muddo 30 sano ah yaa dowladdu shaqaynayay 30 sano waxay ahayd maya 3 sano yaa dowladdu shaqaynayay laga bilaabo dowladda hoose oo magaaladan kadibna waxaan aaday meesha la yiraahdo county-ga Erie County-ga deganahay markii la magacaabay ka horna waxaan u shaqaynayay state-ka markii aan soo casilayna state-kii aan dib ugu soo noqday wadani aniga waxaan u aqaanaa ninka dalkiisa iyo dalkiisa oo qabtay dhibaatada intay ku jireen dhex joogay la sabray waxa la sameeyay iskoolada u dhisay xeerasha u qoday ilmaha aqoontaada u xanaaneeyey waxa la yidhi dadkiisa dhibaatada kula sabray nabiga wuxuu yidhi muslimka waa kala fadli badan yihiin dadka dhibkooda ku dhex jiray sabra iyo mu'minka kaligiis meel iska dawo lafihiisa isaga caynsan way kala fiican yihiin Soomaaliya waxaa timid qof leeyahay waa wadani aan waddanka 30 sano tegin oo waxba ka qaban oo inuu qaban waa wadani yahay ninkii dhex joogay oo ilmaha wax barayay oo iskoolada furayay oo jaamacadaha dhisayay oo waddanka dhex taagnaa oo ilmihiisa ay la joogeen oo meel aan aadinin waxaa la yidhi waa qaali waddan